العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأنا دي سلامي دمان ولا الله هل كان كسوغان من الباء جوكتان وحن هلكي كسي أن بقادنا مركز عشرة ديني تحناها مادة كيمستريا فصل ككوات دبسيغا سارة. maanta waxaan joognaa markaas cashirkii koowaad ayaan ku jirnay chapterkii koowaad su'aalihii cashirkii koowaad ayaan maanta qaadanaynaa. sidoo kale waxaan qaadanaynaa cashirkeenii labaad ayaan qaadanaynaa. su'aalihii markaas noogu yimid cashirkii koowaad waxaa lagu bilaabayaa markaasi which branch of science laantee ka mid ah cilmiga does chemistry belong to ayaa markaasi chemistry uu ka tirsan yahay. which branch of science laantee markaasi cilmiga does chemistry belong to uu ka tirsan yahay. why chemistry muxuu chemistryga and physics iyo physicsba are classified loogu kala saara in the same branch hal laamood markaasi loogu kala saaro of science ee cilmiga. markii la kala saarayo cilmiga why markaasi chemistryga iyo physicska hal laan markaas ay u noqdeen. 3 what branch of science laantee cilmiga ka mid ah includes ayuu ka mid yahay markaasi chemistry uu ka mid yahay. sidoo kale biology uu ka mid yahay, physics iyo physics uu ka mid yahay. 4 waxa la yiri which branch of science markaas laantee cilmiga do you think ayaad u maleynaysaa is more important inay aad muhiim ugu tahay for criminal investigation damba baarista waxyaabaha la xiriira inay markaas aad ugu muhiim ugu tahay laantee ayaad maleynaysaa ee la yiri. why sababta aad ugu maleynaysidna waa raacinaysaa. markaasi su'aasha shanaad waxaa leeyahay markaasi which branch of science markaasi laantee markaasi cilmigaysan focus on ayaa diiradda saaraysa the study barashada of people ee dadka. su'aasha markaasi lixaad waxaa leeyahay markaasi in which sub branch laan hoosaadkee ayaa of science ee cilmiga do we study ayaan ku baranaa markaasi soil markaasi saliid aan ku baranaa. waayahay waxaan usii gudbaynaa cashirkeenii labaad ayaan gudbaynaa ilaahay haddoo idmaa. cashirkeenii labaad maanta waxa uu ku saabsan yahay waxa waaye scientific method. scientific method waxaa la yiraahdaa haddii la af Soomaaliya waa dariiq sayniseed. scientific method waa dariiq sayniseed. dariiq sayniseed waxaa la yiraahdaa aqoon sayniska inta badan waxaa lagu helay baaris si hagaagsan loo sameeyay oo ay sameeyeen saynisyahano khibrad dheer leh. tabaas marka ay isticmaaleen ayaa la yiraahdaa dariiq sayniseed. dariiq sayniseed sifooyinka aad ugu muhiimka badan ee alla uu ina siiyey aadanaha waxaa ka mid ah in ay isweydiiyaan had iyo jeer markaasi isweydiimo oo ah markaasi wixii arrintaasi ku dhacday iyo siday u dhacday. qofka bini'aadamka ee nool adduunkan waxyaabo badan ayuu ku arkayaa, waxyaabahaasoo markaasi fajac ku noqonayo uu iska weydiinayo sidaani ku dhacday iyo sidays u dhacday. waxyaabahaas ayaa waxaa ku kalifaya qofkii markaasi in uu ogaado ama jawaab inuu u raadiyo waxyaabahaas uu ku fikiray. waxyaabahaas marka aad ku fikirtay haddii aad doonayso inaad jawaab u raadiso hababka aad maraysid ayaa waxaa la yiraahdaa scientific method. tusaale ahaan waxaad rabtaa inaad ogaato geed ama geedaha inaad ogaato ayaad rabtaa bacrimiyaasha ugu wanaagsan ee markaasi suuqyada yaallo. waxaad rabtaa marka inaad jawaabtii aad soo heshid. jawaabti markaad rabto inaad soo heshid waa inaad adiga raadisaa markaasi jawaabti sidee ku raadi kartaa waa inaad martaa dariiqan cilmiyeysan waa inaad martaa dariiqadan cilmiyeysan haddii aad marto jawaabtu waa soo helaysaa markaasi. tusaale haddii aad rabto inaad ogaato qofku wuxuu samayn karaa inuu soo qaato fertilizers 3 ka mid ah fertilizer inuu soo qaato 3 ka mid ah bacrimiyaal, sidoo kale inuu soo qaato 3 kirli ama markaasi geedka la yiraahdo ashuumaha yiris inuu soo qaato inuu carro ku wada shubo inuu markaasi saddexdii markaasi carrada uu ku wada shubay in uu markaasi iniinyo uu ku daboolo iniinyo uu ku rido iniinyada uu ku rido saddexdii bacrimiyadood uu ku kala rido. markii uu kala rido oo in muddo uu sugo tusaale marka 2 bilood oo qiyaastan ama 30 maalin inuu joogo kadib uu fiiriyo geedihii kee ayaa si wanaagsan u baxay kee ayaan si wanaagsan u bixin. midka si wanaagsan u baxay geedihii waxay muujinaysaa fertilizerkiis oo uu isticmaalay inay tahay fertilizer wanaagsan ayna ka wanaagsan tahay labadan kale. nidaamkaas oo markaas aad ku sameynayso tijaabooyinkaas ayaa waxaa la yiraahdaa scientific method. scientific methodka qofka marka uu sameynayo 4 nidaam buwa uu maraa. in marka koowaad waxaa looga baahan yahay uu sameeyo in uu fiirsasho uu sameeyo waa inuu isku dayaa marka insaaniyahanku
inuu soo aruursado wax allaale wixii markaasi war ah ee ku saabsan dhacdada uu doonayo inuu markaasi darso amadiisanu tahay waxa dhab ahaantii dhacaya. Markaasi qofku waxa uu samaynayaa shaygan uu rabo inuu ogaado. Marka hore wuxuu leeyahay dadaa kaaga horreeyay waxaan sidaan kale ugu fikiray, maxay ka qoreen, maxay ka yiraahdeen, maxaa markaasi jawaab usoo baxday inaad darsatid u raadsiyaa lagaa rabaa. haddii aad sii gudgelaysid lambarka labaad waxaa waaye inaad xeer markaasi loo dejiyo shaygii. marka uu saynisaanku damco inuu dejiyo xeer waa inuu isku dayaa markaasi inuu isku hagaajiyo wararkii uu ka helay fiirsashooyinka. wararkii aad ka heshay inaad dejiso oo aadan hareermarin oo si sax ay dadka ay usoo sameeyeen adiga nidaamkaas inaad u marto aadan hareermarin ayaa lagaaga baahan yahay markaasi. sidoo kale aragti lambarka saddexaad waxa waaye waa aragti qofka inuu sameeyo oo ah markaasi markuu saynisaanku ogaado waxa dhacaya oo markaasi wuxuu usii gudbaya howl intaas ka culus maxay tahay oo ah markaasi inuu isku dayo inuu ogaado wax dhacdadaasi sidaas ay ugu dhacdo si maangal ah oo u fikirane waxaa laga yaabaa in ay markaasi gaarsiiso inuu helo fikrad suurtagal ah oo uu markaasi ku sharxi karo shaygii isaga oo markaasi uu baaray. mid dambe ugu dambeysana waxa ay tahay iyadana markaasi in qofkan uu sameeyo hubsasho ama gabagaba inuu sameeyo sida caadiga markaas suurtagal kuma noqonayso in qumaati aad u cadeyso in fikradaha markaas aad aragtay ay hagaagsan yihiin. hase yeeshee aragtidu wax ay markaasi tahay ama markaas ahaan doontaa ilaa inta ay dhacdada sharxi karayso. waxaa loo baahan yahay in la hubiyo markaasi oo la shiroobo aragtidaas soo samaysay kadib ayaa markaasi la dhihi karaa waa sax markaasi oo markaas qumaata ayaa loo cadeyn karaa. nidaamkaas oo scientific method la yiraahdo ayaan bari doonaa ilaahay hadduu raalli ka noqdaa. scientific method waxaan ku sheegnay inay tahay markaasi dariiqo cilmiyeysan waa scientific method waa dariiqo cilmiyeysan waa markaasi. waayo waxaa la yiri lesson objectives ahmiyadda laga leeyahay markaasi cashirkaani by the end of the lesson dhammaadka cashirka the learners bartuhu should able to waa inuu awood u leeyahay. hadduusan awood u lahayn intaani soo socota macnaha waxaa waaye markaas muusan fahmin scientific method mise dariiq cilmiyeysan ma fahmin. haye muxuu awood u yeelan doonaa bartuhu describe inuu sharxi karo an apply misna uu ku dabaqi karo scientific method dariiqaha sayniseed in daily life activities shaqooyinka markaasi nolosheena caadiyan ka dhaca inuu ku dabaqi karo ayaa la rabaa. shaqooyinka caadiyan markaasi oo ka dhaca maxaa kamid ah waxyaaba allaala waxaad qabatid in dariiq sayniseed dariiqa loo maray ee cilmiyeysan inaad soo saari kartid. haddaadan soo saari karin scientific method maadan fahmin. everyday maalin walba waxaa la yiri waxaan isweydiinaa questions su-aalaha iswarsanaa maalin walba. qofka su-aalaha iswarsanaa waa kee waa qofka alla subxaanahu watacaala uu cilmiga uu siiyey aqliga uu siiyey garaadka uu siiyey laakiin kan kale waxaa waaye ma ogaba wax adduunka ka dhacayo lama socdoba kan jaahilka ah waxa sababtaan ay ku dhacday iyo wax lama socday. qofka cilmiyeysan oo markaas cilmi alla subxaanahu watacaala uu siiyey ayaa maalin walba su-aal isweydiiyey su-aashaas ayuuna jawaab u raadin. waxaa la yiri waxaan isweydiinaa questions su-aalo aan siik waxaan u raadinaa markaas answer jawaabo to organize markaas aan isugu habeyneyno and make senses aan ugu macneyneyno markaas of the world around us adduunkan nagu hareereysan. jawaabo aan isugu habeyneyno aan ugu macneyneyno ayaa markaasi raadinaa la yiri. what are the job maxay jeesadu made up of ay ka samaysan tahay daily life-kay ka mid tahay sababtoo ah jeesada maalin walba wax lagugu qoraa ama wax aad ku qortaa markaasi waxaad isweydiisay jeesadaanu maxay ka samaysan tahay. where does energy of the body halkee ayuu markaasi tamarta of the body ee jirka kan from inooga timaada. why sababtee plastics markaasi caagu ama bacdu why sababtee plastics caagtu ama bacuhu do not rust aysan u daxalaysan maxaysan u daxalaysan waa iswarsanaa. to answer inaad ka jawaabtaa this question su-aalooyinkan and more intaas kasii badan su-aalooyinkan iyo wax kasii baranba waxaan isticmaalaynaa systematic process markaasi nidaam waxaan isticmaalaynaa oo markaasi habaysan hanaan markaasi nidaamsan ayaan isticmaalaynaa. nidaamkaas habaysan college waxaa la yirahdaa scientific method dariiqa cilmiyeysan ayaa la yirahdaa. scientific methodka muxuu yahay marka scientific method dariiqaha markaasi cilmiyeysan waxaa waaye markaasi is a set of
produce procedures waa hanaano isu tagay waa is a set of procedures waa hanaano isku tagay that kuwaasoo markaasi scientists cilmiyaqaanadu flow ay raacaan in others markaasi to gain ay u helaan knowledge cilmi about ee ku saabsan cilmigaas oo ku saabsan the world dunida ku saabsan waxaa marka the procedures hanaanadaas isugu tagayna of a scientific method ee markaasi dariiqaha sayniseed consist of waxay ka kooban yihiin waa making observation waxaa waaye markaasi waa fiirsasho haddii markaas luuqadda ingilishka aanan ku dabaqin luuqadda cilmiyeysan haddaan ku dabaqno oo chemistryga ay leedahay making observation waxaa waaye markaasi waa fiirsasho waaye maxaa waaye fiirsasho the act waa full of careful and systematic examining the act waa full of careful si taxadar leh and systematic examining markaasi hab markaasi nidaameysan loo baarayo of scientific problems caqabadaha markaas cilmi ahaaneed its qualitative ayadoo markaasi loogu baarayo qualitative xaqiiq raarin ama arin markaas si cilmiyeysan loo baaro oo si qualitative loo baaro aan sidoo kale quantitative in loo baaro markaasi si markaasi wax ay yihiin in loo baaro by using adoo isticmaalayo the 5 senses shanta dareen wade and equipment iyo qalabka shaybaarka adoo isticmaalayo waa inaad samaysaa waa sidoo kale formulating hypothesis iyadoona waxaa waaye markaasi haddii aan si markaasi cilmiyeysan aan u fasirno waa xeer waa in markaasi xeer aad samaysaa waa making an educated guess waa in aad samaysaa markaasi qiyaas cilmiyeysan based on ku salaysan markaasi a few known facts markaasi dhacdooyin ama xaqiiqooyin dhowr ah ee la yaqaan which kuwaasoo has not been proved aanan la cadeynin it markaas iyadu can be waxay noqon kartaa tested mid la tijaabi through ayadoo loo marayo experiment tijaabo tan saddexaad waxa ay tahay markaad making designing experiments waa aragti designing experiments waa aragti producers markaas waxaa leeyahay procedures hanaanada dad kuwaasoo testis ay tijaabinaya hypothesis mala awaalku by the process ay ku tijaabinaya habab of collecting ee markaasi soo aruurin information warbixin under controlled condition marxalada markaasi controlan experiments tijaabo proof la cadeeyo or ama disproved hypothesis iyo aragtiyo aanan la cadeyn ayaa waxaa la yidhahdaa markaasi aragti taas ayaa la yidhahdaa making conclusion inaad samaysaa markaas ugu dambeyntii hubsasha waa inaad samaysaa a well tested hypothesis aragtida markaasi sida wanaagsan loo tijaabi dad taasoo explain sharxiisa a natural phenomena scholar theory aragtida markaas dabiiciga ah taas ayaa waxaa la yidhahdaa theory aragti ayaa la yidhahdaa a well statement oraah markaasi a well statement oraah dadkaasoo summarizes ee markaasi dulmar ku sameynaysa experimental results natiijooyinka markaasi tijaabineed scholar waxaa la yidhahdaa iyaduna scientific law ayaa la yidhahdaa xeerka cilmiyeysan ayaa la yidhahdaa examples tusaalooyin ayaan u gudbaynaa tusaalooyinka waxay leedahay identify haddaba aqoonso each of the following kuwaana soo socda mid weliba activity shaqooyinka ah in ay ku jira markaas scientific method dariiqooyinka cilmiyeysan as waxaana u aqoonsataa an observation inuu yahay markaasi hypothesis inuu yahay or ama experiment inuu yahay saddexdaas midkii uu yahay kala aqoonsaa la yidhaha tusaale waxaa la yidhaha a metal bir ayaa reactive with waxay la falgashay acid waxay la falgashay markaasi aashita ayay la falgashay to produce say u soo saarto gases hawo say u soo saarto maxaa uu noqonaa loo yiri hypothesis waa aliyara lambarka labaad Muhammad ninka la yiraahdo balesad waxa uu dhigay sodium metal ayuu waxa uu dhigay in a beaker ayuu dhigay koob weyn waaye markaasi with ay ku jirto acids
ay ku jirto markaasi acid ama markaasi ashita ay ku jirta. tan saddexaad waxaa la yidhi after kadib aweel in muddo ah the beaker weelkii markaasi weynaa oo maxamed uu ku shubay sodium metalka uu ku shubay with acid oo kula shub markaasi ashitada release waxay sii daasay gas hawo ayay sii daysay ayay yidhi. activity ayaa markaasi noo soo baxay. activity waxaa leeyahay markaasi form isku habeeya a group koox and read akhriya the following kuwan soo socdo then markaad akhrisaan kadibna analyze turxaan bixiya and identify markaasna ogaada the scientific statements oraahooyinka cilmiyeysan at the observation hypothesis or experiment saddexdaas kale ogaada la yiri. waxaa la yiri markaas some reactions falgalada qaar release waxay sii daayaan heat ay sii daayaan. waa kanaaw how waxaa la yiri blessed waxay dhigtay some detergents ooma ayaa waxa ay dhigtay into her hand gacanta ooma marka hore ku shubatay and buurid markay gacanta ay ku shubatay markaas oomo buurad waxay ku shubtay water biyo ay haddana waxay kula shubtay into it gacantii oomada ku jirtay ayay haddana ku shubtay markaas biyo ay ku shubtay soon durba isla markiiba wax yar kadib after she felt waxay dareentay markaas hot kuleel ayay dareentay. exercise su'aalo waxaa la yiri markaasi exercise waa su'aalo lambarkooda waxaa la yiri why maxaa would statement orahdani ay u tahay maxaa if I stop haddii aan joojiya drinking markaasi cabida coffee bunka in the evening caweyskii ama maqribadii I will be able waxaa markaasi awood u yeelanaya to sleep inaan hurda at night habeenkii. haddii markaasi fiidkii ama maqribkii aanan cabin markaasi kafee ama bun waxaa la yiri waxaa markaasi aan awood u yeelanayo inaan hurdo. be consider I hypothesis taas u tixgeliya lagu yiri in hypothesis ayba tahayba. tan labaad what scientific skill maxaa markaasi xirfadda cilmiyeysan ay tahay markaasi Kawsar using ay isticmaalayso when markii she listens ay dhegeysanayso to the voices codka ama jabaqda of cats markaasi bisaadahu ay dhegeysanayso. xirfadda cilmiyeysan ayay Kawsar adeegsanaysaa markii ay dhegeysanayso codka markaasi bisaadahu. tan saddexaad waxaa leeyahay why it is important maxay muhiim u tahay to conduct markaasi in lagu dhaqmaa scientific tests tijaabooyinka cilmiyeysan more than wax ka badan one time hal waqti. su-aasha ugu dambeysa waxay leedahay how sidee do scientists dadka cilmiyaqaanadu make ay u sameeyaan laws sharciyo ama xeerarka sidee u sameeyaan. cashirkeena halkaas ayuu ku egyaa maanta. salaamu calaykum waraxmatullaahi. bismillahi raxmaan